بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي هبوندا وديال كسو دوادا أخباراتك عن دين هينو كودا ودورك حلان maraykanka ayaa waxa uu gurmad soo gaarsiiyay Soomaaliya taas oo la xiriirta sidii looga hortagi lahaa cudurkan dunida ku faafay ee COVID-19. askari ka tirsan ciidamada dowladdu waxa uu dad shacab ku toogtay degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. dil qorsheysan oo abaabulan ayaa ka dhacay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. haddii aad nagu cusub tahay channelkan subscribe saaro. aynu ku bilownay dowladda Maraykanka ayaa deeq caafimaad tii ugu horeysay nooceeda ka timid dalka Maraykanka waxa ay ku wareejisay wasaaradda caafimaadka Soomaaliya, taasi oo loogu talagalay in lagula tacaalo xanuunka COVID-19 oo dhibaato ku hayo caalamka. 350 sayrood oo faraashyo iyo qalab kale oo looga hortagayo xanuunka coronavirus ee dhibaatada ku haya caalamka ayay ka kooban tahay, taasi oo kaalin weyn ka qaadanaysa xakameynta cudurka. waxaana dowladda Maraykanka ay soo marisay hay'adda USAID oo ka mid ah hay'adaha caawiya Soomaaliya. Mukhtaar Yuusuf Cirro oo ka mid ah mas'uuliyiinta hay'adda Maraykanka ee arrimaha gargaarka ku wareejiyay deeqdan wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in ay tahay mid loogu talagalay in dowladda Soomaaliya ay kaga hortagto bushiga COVID-19. wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada Soomaaliya Dr. Fawziya Abikar Nuur oo qalabkaasi la wareegtay ayaa uga mahad celisay hay'adda USAID deeqda ay soo gaarsay, waxaana ay tilmaamtay in wasaaraddu ay ku howlan tahay sidii loo xakameyn lahaa xanuunkan dunida sida aadka ugu sii faafaya ee COVID-19 oo Soomaaliya qudheeda faraba'an ku haya. degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan haddii aynu eegnana mas'uuliyiinta maamulka degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan iyo ciidanka xoogga dalka qaybta 27aad guutada shanaad ururka 39aad ayaa bilaabay howlgal ay ku baadigoobayaan dadkii ka dambeeyay dil askari ka tirsan ciidamada dowladda loo geystay. askariga ayaa xilliga la dilayay waxa uu ku sugnaa wado ku taalo duleedka degmada Maxaas, waxaana howlgalka ay mas'uuliyiintii saraakiishu ay ku tageen deegaanka Xor Cad oo u dhow tulada Yesooman. gudoomiyaha degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan Cabdi Muumin Cilmi ayaa sheegay in dilkaasi ay ka dambeeyeen Al-Shabaab, waxaana uu wacad ku maray inay gacanta ku soo dhigi doonaan dadkii ka dambeeyay falkaasi oo la tuhunsan yahay. ciidanka dowladda qaybta 22aad ayaa mararka qaar waxa ay howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab ka fuliyaan wadada xiriirisa magaalooyinka Beledweyne iyo Maxaas ee gobolka Hiiraan, iyaga oo mararka qaar kala kulma weeraro toos oo Al-Shabaab ay ku soo qaadaan, waxaana inta badan dhacda in halkaasi labada dhinacba isku farasaaraan. warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dilal ka dhacay magaalada Muqdisho. warkaasi dib ayaan ugu soo laaban doonaa. hayeeshee warar soo baxaya ayaa sheegaya in magaalada Muqdisho laga helay kiisas cusub oo la xiriira cudurka coronavirus. wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa sheegtay in maanta warar kala duwan oo soo baxaya ayaa sheegaya in magaalada Muqdisho laga helay kiisas la xiriira caabuqa coronavirus. wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa shaacisay in dad gaaraya ilaa iyo 73 qof laga helay cudurkaasi. wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in dadka cusub ee tiradoodu gaarayso 73 kuwaasi oo 52 kamid ay yihiin rag, halka 22 kan ay yihiin dumar, waxaana ka bogsooda hal qof. midkan oo uu geeriyooday ayaa lagu sheegay war qoraal ah oo xalay saqdi dhexe ka soo baxay wasaaradda caafimaadka Soomaaliya. dadkan ah kuwii ugu badnaa ee maalin kaliya laga helo cudurka coronavirus ayaa tirada guud ee dadka cudurka qaba Soomaaliya oo dhan waxay ka dhigaysaa 237 qof inta laga warqabo. wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya horey waxay u sheegtay in kiisaska cudurka ee laga helay dalkan ay sare u sii kacayso maalinba maalin ka dambeyso, loona baahan yahay shacabka inay ku dhaqmaan talooyinka caafimaad ee loo soo jeedinayo iyagoo aan fariimaha wacyigelinta ay yareysan. hoos u dhac taariikhi ah ayaa ku yimid qiimaha shidaalka qayriinka ah ee Maraykanka kadib saameynta ay keentay dhaqaale xumida iyo cudurka COVID-19. qiimaha saliidda uu Maraykanku soo saaro ee gobolka Texas ayaa saacadihii ugu dambeeyay hoos u dhacay ilaa ay gaarto qiimo ka hooseeyo eber. hoos u dhaca ku yimid shidaalka qayriinka ah ee Maraykanka ayaa ku bilowday isla markii uu saakay furmay suuqa iyadoo sicirku ahaa 18.27 senti fuustadii markii uu xirmay Jimcihii hore, waxaana dib uu hoos ugu dhacay si aan la filayn ilaa uu gaaray 0
ilaa iyo menis 40 oo ah qiime aan weligii gaarin inta la furay suuqa ganacsiga saamileyda ee NXMS 1983. arrintan waxay ka dhigantahay in cid iibsata iska daayay bilaash lagu siinayo qofkii raba ama lacag lagu siinaynin si shirkadaha ay uga takhalusaan saliidda badan ay waayeen meel ay ku kaydiyaan. waxaa kaloo xilligan socda hoos u dhac aan horey loo arag oo ku socda dhammaan qiimaha dalabyada dambe iyo heshiisyada saliidda ee dib laga dalbado, waxaana muuqata in qiimaha saliidda Mareykanka uu burbur ku yimid kaasi oo saameyn weyn ku yeelan doona dunida oo dhan. waa taariikh cusub oo dunida kusoo korortay iyo rikoor loo dhigay qiimaha saliidda oo aan weli hore u dhicin in shirkadaha iibiya saliidda ay lacag ku bixiyaan si looga qaato wax soo saarkooda, waxaana arrinkan sababteeda leh dagaalka qiimaha shidaalka ee dhex maray Sacuudiga iyo Ruushka oo keenay in saliid badan oo dunida lagu fataho xilligan dalabkii ugu yaraa sababo la xiriira COVID-19 awgeed. askari ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa 2 qof ku dilay qaar kalena ku dhaawacay degmada Kaxda ee gobolka Banaadir sida ay sheegayaan wararka halkaasi laga helayo. warar kala duwan ayaa kasoo baxaya qaabka uu falkan u dhacay, kuwaasi oo qaarkood ay sheegeen askariga iyo dadka uu laayay qaarkood ay murmeen, halka warar kale ay tilmaamayaan askariga oo isticmaalay waxyaabo maanka dooriyo uu rasaas ku furay goob ay ku sugnaayeen dadkan. ciidamada maamulka degmada Kaxda ayaa gaaray goobta ay wax ka dhaceen iyagoo baadi goobaya shaqsigii falkaasi ka dambeeyay. dhinaca kale, qarax dhimasho iyo dhaawac u geystay rag la sheegay inay aasayeen ayaa ka dhacay degmada Hiliwaa ee magaalada Muqdisho. saraakiil ciidan ayaa ku waramaya in 1 nin uu geeriyooday 2 kalena ay ku dhaawacmeen markii 3 nin oo miino ku aasaysay ay kula qarxday wadada marta isgoyska Soos iyo inta saraakiisha ciidamada ayaa ku waramay in 1 nin uu geeriyooday 2 kalena ay dhaawacmeen markii nin miino ku aasayay ay kula qarxday wadada marta isgoyska Soos oo inta badan ay isticmaalaan ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya kuwa AMISOM halkaasi oo fariisin ay ku leeyihiin. ciidamada ammaanka oo ku sugan meel halkaasi u dhow ayaa gaaray goobta iyagoo halkaasi ka qabtay raggii dhaawaca ah isla markaana ka soo qaaday sawirro lagu baahiyay baraha bulshada. wasiirkii hore ee warfaafinta Soomaaliya Ambassador Daahir Maxamuud Geele ayaa weerarkii ugu xoogganaa waxa uu ku qaaday filla Soomaaliya. Al-Shabaab dhowr jeer ayay hoobiyaal ku weerareen garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. qaar ka mid ah hoobiyaashaas ayaa ku dhacay saldhigga Xalane ee garoonka ku dhegan. weeraro kale oo gaadiid la qarxiyay loo adeegsaday waxyeelana geystay ayaa sidoo kale lagu qaaday saldhigga Xalane iyo garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. weerarada lagu qaado garoonka diyaaradaha iyo nawaaxigeeda waxa ay ka saameyn badan yihiin kuwa ay sida joogtada ah Al-Shabaab uga fuliyaan magaalada dhexdeeda, inkastoo khasaaraha muuqda sida dhimashada iyo dhaawaca iyo burburka hantiyeed ay ka simanaan karaan. haddana marka ay garoonka diyaaradaha joogto, weerarada noocan ah waxay bulshada magaalada ku yeelan karaan saameyn taban oo ka badan inta la maleynayo. marka koowaad, garoonka diyaaradaha Aadan Cadde waxa uu adeeg siiya Soomaalida ku nool magaalada iyo gobolada, waxaana uu il dhaqaale u yahay dowladda. sidoo kale waxaa adeegsada hay'adaha gargaarka sida siiya dadkeena diblomaasiyiin Soomaali fadhigoodu yahay iyo howlgalka Midowga Afrika AMISOM oo kaalin lixaad leh ku leh dhisidda dowladnimada Soomaaliya. sidoo kale garoonku waxa uu waayadan dambe soo jeedinayay indhaha caalamka iyadoo diyaaradaha caalamiga ah ee dowladda ay bilaabay ay kordhayeen. haddaba haddii aan wax laga qaban weerarada Al-Shabaab ku qaadaan garoonka iyo nawaaxigiisa, waxay saameyn doontaan dhammaan howlaha aan kor ku soo xusay, ayuu ku yiri war qoraal ah uu soo saaray Ambassador Daahir Maxamuud Geele. sidaa daraaddeed, dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo dadka Soomaalida waxaa la wadaagayaa wacaal aniga oo ku boorinaya dowladda inaysan weerarka garoonka lagu qaadayo arkin hoobiye lasoo tuuray oo ay dareento saameynta taban ee dalkeena ay ku yeelan karaan weerarada lagu qaado goobaha muhiimka ah. dowladdu waa inay arrin qaran u aragtaa difaaca garoonka diyaaradaha iyo xerada martida sharafta leh ee ku sugan yihiin ee Xalane. ugu dambeyn, Al-Shabaab waa dabeecad lagu yaqaan in ay isku dayaan in ay bulshada gaarsiiyaan nabarba midka uu ka xanuun badan yahay, lagamana filayo wax aan dil qaxin burbur ahayn yaan laga yeelin in ay suurto gasho. arrintaasi ee xoogga iyo dhaqaalaha la haysto hala isugu geeyo ka hortagga iyo la dagaalida kooxdan duulaanka ku ah
wax kasta oo diinteena iyo dhaqankeena xarimeen xadgudub ah, ayuu yiri Ambassador Daahir Maxamuud Geelle. qof kasta oo ka warqaba dhibka laga soo maray dib u furitaan garoonka Aadan Cadde burburka kadib wuu ku walwalayaa in garoonka ay wax soo gaaraan waqtigan, isla markaana sumcadiisa heerkiisa shaqo dib loo wiiqo, ayuu mar kale ku celiyay. xogtii la xiriirtay wararkii ugu waaweynaa dunida ciyaaray waa inaga inta nabadeen.